وفديو كوميدي وزير كارهما جودات دولة جولات كوافر قلب الصومالية محمد أبو بكر عبدي وزير كارهما جودات كوافر قلب إسحاق علي السبق قدوميها الدجمة واللوين إسماعيل الشيخ أبو بكر يو تلياها إذا كدراويش كوافر قلب يونس يو قاد كوميدي سراكيل ميليتري الصومالي يسافر لك كسيدين ديجان كيقبر وين أو كترسن دجمة واللوين قبل كشبه لا وزير كارهما جودات يا وزير كأمنية يوفدي جي مدية ديرين ديجان كيقبر وين يبغى بميلس وين كدواي dadka degan deegaankaasi way baan meel kala hadlayna shacabka ka dhagan deegaanka yaqbar weyna oo meelayo ku dhagasay qodbooyin shirkadisan oo hanjeediyeen gudoomiyaha degmada Walaweyn iyo wasiirka arrimaha gudaha aan ku hareen way baan meel ku hadlay gudoomiyaha degmada Walaweyn Ismaaciil Sheekh Abubakar oo dadweynaha aan sheegay in deegaanku ay deegaan muhiim ah waana geek aan kooyan sidii la hormarsi lahay yaqbar weyn oo ku tirsan degmada Walaweyn ay gudoomiyaha degmada Walaweyn hadda korna waa imaaday yaqbar weyn sala socotaan laakiin isma arkna si wanaag mara imaaday marka waxaan rabnaa maamulka degmada Walaweyn wuxuu rabaa ka soo bilow gurdaan waa taqaan soo gurdaan waa xuduudda degmada Walaweyn laga xukumo waxaan rabnaa gurdaan laga soo bilaabo ilaa leego in la isku xiro maanta waxaa intuu salaamay oo nala socdo wasiirka koonfur galbeed ku sareeya nala socdo wasiirkii arrimaha gudaha iyo wasiirkii amniga nala socdo maanta waxaan idigu maannay inaan ogaano xaaladiina mar xaaladii wax ku sugan tihiin kullana waa la soconnaa yaqbiruna dad timaado baqay agasho aa cuntayso iibsada lacag ku jirto $200 ku jirto turkiga nibaad Soomaa arina idamintay marti inaan soo sheegtaan daaw han noqoto waan ogaa inaad daaw meeshan oolin daaw yar Soomaa had xil kula lagu jiro daaw taalo amsiis mugu yaalo marka adii dhan waa soo socdaan marka waxa la yiraahdaa idinku wixii oo aqoon idin haysato iyo baahidiina iyo maamulka nabadeenta nabadina waa shay muhiim ah hadii nabad aysan jirin hadii shay Soomaaliland waxa keenay nabadda keenayso marka waxa idin leeyahay yar yaqbir weyna dad aad u fiican atiin dulqad badan hadii waxaan rabnaa wixii asaas idinka dhiman حق مامور كنا قطع أنا يدين كارسينايو وحي أنا قاعد تلفون ويسان حفيزك ما كرين دول بديت توصل شيء هذا يقبلون تبانا الجرو وحرر علينا هي سوى ضوء فرطي بارسو حكي مرتا وهذا ستان صبرت بربو صبر جرتي ما عنده حي صبر زحيتها نبض إيه جرتوا وايد مروح حرمنا باور كي مش بكارك صبحه يقبلون ما كرمنا هذا باور يقبلون راشيك بكارك صوم ماذا لكن صوم صلابا مروح حرمنا ناس يحجنوا قاسي بدنا ما مرت سكو حرنو يا بروين يولي سكو حرنو لاقي يا مرتي ولي سكو حرنو وحي او عبش جير wax walba in xalin karo wixii hada keenan daaw noqoto raashin noqdo wixina ay heshaan idina la maamul soo xiriirtaan ana kala shon maamulkan wuxuu diyaar u yahay inuu shaqeeyo baahina uu gudbiyo qofka uu gaarsiiyo maanta qofka waxay soo gaartay dabada Walaweyn anka dabooyin wasiirka arrimaha gudaha dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Maxamed Abubakar Cabdi yaa hadal dheer meelaha ku jeedi aan sheegay bulshada isla hadalay sidii iyo aan ka faraxsanayn hadawaayo ku yahan dhawaayeen iyo baahiyaasha gedisan oo markaas ay isku dhageysan doonaan waybaana wasiirka sheegay in yaqbar weyn iyo kumid ee koonfur galbeed isla markaasna la ku xaqab tiro doona baahiyaasha gedisan iyo gaban waana geeka aan kooyan anjeedada community sidii deegaanku la hormarsi lahay waana la ku warqab lahay ka jira deegaankan inaan soo gaarna farxad weyn bay noo tahay aniga iyo wasiirkii waftiga waxay mas'uuliyad weyn baa naga saarneyd in deegaan kasta iyo degmo walba koonfur galbeed ka tirsan aan tagno marxaladeedana aan la socono xaqiiqdii waxaan aaminsanahay shacabka meeshan fadhiyo waxay u baahan yihiin dawladnimo waxay u baahan yihiin adeegii dawladda ay uga baahnaayeen waa xaqiiq meel walba qof Soomaali joogana taas u baahan yahay marka taasna insha Allah taala maanta qayb weyn bay ka tahay soo gaaristeen inaan soo gaarna deegaanka yaqbar weyne aan bulshadiisi la kulanno aan ugu yaraan aan aragna marxaladii baahiyaha ka jira xaqiiqdii way ku mahadsan yihiin ciidamada qalabka wada Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan aad bay ugu mahadsan yihiin idinkana waa mahadsantiin xaqiiqdii inaan idin aragno aan kala warqaadano aan aragna baahiyaha ka jira kali in telefoon lagu soo sheegay soo gudbi waxa ka qurux badan inaad aragtid marka ka koonfur galbeed ahaan waajibaad baa naga saaran dawladda koonfur galbeed muddooyinkii ugu dambeeyay waxay shaqo adag ka wadaa in deegaanada dib loo xoreeyo dadka shacabka reer koonfur galbeedna la gaarsiiyo
adeegyada ay u baahnaayeen ay ka mid tahay caafimaadka waxbarashada biyaha nolosha waddanka waan ognahay waxaa ka jirta abaar waxaa ka jira colaado waxaa ka jira dhibaato badan oo qaybo dhinacyo badan kala leh xaqiiqdii waan dareemi karnaa maanta daruufaha qaar oo idin haysto waan dareemi karnaa mararka qaar inaadan sidaa rabtiin noola hadli karin waxa rabtiin noo sheegi karin nabadgelyadeeda iyo khilaafyadii jira la baabi'iyo maamulkii iyo dawladdii shacabkana la isku xidho waan ognahay deegaanadan colaadyo badanaa ku soo laalaabtay muddooyinkii ugu dambeeyey aniga iyo wasiirka amniga iyo dad badan oo saraakiil badan iyo mas-uuliyiin badan reer koonfur galbeed waxaan ka shaqaynay sidii dhibaatadaas looga saari lahaa waad la socotiin waddadan marta halkan dhibta ay ku haysay ummadda Soomaaliyeed ilaa Itoobiya Kenya ciidamo isbaaro dhigtay idinka naftiin waxay dhibaato idin soo gaarsiiyay oo la socona maanta anteenooyinku u jiran yihiin oo dhibaato badan idin soo gaartay niman muuriyaan oo waddadan shaqo kale aan lahayn inay isbaaro dhigtaan ummadda dhacaan dadku baabeeyaan dhibta qaar saas sababteeda idin soo gaartay marka waa dadkii u taagnaa baan nahay koonfur galbeed in dhalinyarada intii wanaagsaneedna dib loo hareeyo la ciidamayo la qarameeyo ta intii la qaban waayo tuugnimo u taagan in ummadda laga qabto waa labo qofka in ummadda laga qabto oo ii sheegadi ama in la soo celiyo dhibaatadu ku jira ka soo bax anta ka soo noqon karto oo ciidanimo iyo qaranimo iyo Soomaalinimo rajo kale waxaan ku soo dhaweynay inay ciidan noqdaan ciidan dawladeedna ay noqdaan waxay u adeegayaan ay noqoto shacabka laakiin ay noqon kuwa dhibaateeya shacabka kuwa safarka iyo kuwa wadada maraya xoolooda dhibaateynaya aad baan ula socnaa wadadan dhibaatada ka jirta maanta waa laga soo gudbay ciidankii qaarna daraawishta koonfur galbeed baa laga dhigay qaarna markay la qabsan waayeen jawiga way iska carareen kuwa kalena gacan bir baa lagu qabtay waxaan idin ballan qaadaynaa cid walba oo isku dayda wali inay wadada si ataagta gacan bir lagu qaban doonaa waxaan rabnaa taas waxay sameynaysaa bulshooyinka inay isku diraan oo dadka ay noqdaan meel dad kala xirxiran aan isu socon karin oo meel u socdaan aan jirin marka idinkana waxaan kaga baahannahay dib u heshiisiintaas iyo wada noolaanshaha ummadda in la soo celiyo qofka qalweyn intuu ka tagay si nabad ah wala weyn uu ku tagi karo halka si kastaba haato wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka amniga iyo wafdiyeeya muddooyinka ka sugnaay degmada Walaweyn wayba dareer kamarayna isla markaas qodaayna qaybo ka mid ah degmada Walaweyn iyo deegaanada hoos kooyaan si markaasi ay ogaadaan baahiyaasha gedisan isla markaasna lagu shaqeey amniga guud deegaanka Abshir Maxamed Nuur Mandela warbaahinta Koonfur Galbeed yaaq barweyn degmada Walaweyn gobolka Shabeellaha Hoose